daawadayaasheena ilayska dunida muuqaalkan waxaan idinku turjumi doonaa xogta dhimashada Kim Jong Un oo baryihii dambe warbaahinadu tilmaamayaan inuu geeriyooday Kim. waxaa wali soo baxaya xogo iyo macluumaad ku saabsan xaaladda caafimaad ee Kim, waxaana muuqaalo dhanka dayax-gacmeedka ah lagu qaaday oo isku daba riday macadka baaritaanada ee Mareykanka ee la socda arrimaha Kuuriyada Waqooyi, xaruntiisuna tahay magaalada Washington. ay muuqaaladaasi muujinayaan tareenka gaarka oo ah Kim Jong Un, tareenka oo ku sugan xarun lagu nasto dalkaasi, xilli ay weli soo baxayaan wararka isku hor imaanaya ee ku saabsan xaaladda caafimaad ee hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. macadka baaritaanka Mareykanku waxa uu leeyahay maqaaladan dayax-gacmeedadu qaadeen waxaa ka soo baxday in tareenka loo maleynayo inuu yahay kii Kim Jong Un ee maalmihii bishan Abriil taagnaa xaruntaasi. waxa uu intaa ku daray in muuqaalka tareenka aanu tilmaamayn halka uu si rasmi ah u joogo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi iyo sida ay tahay xaaladiisa caafimaad, laakiin warbixintani waxay sii xoojinaysaa macluumaadkii sheegayay in Kim muddooyinkii u dambeeyay ku sugnaa mandaqada dabaqada dhaqaale deegaan bariga jamhuuriyadda dalkaasi. iskool ka tirsan dowladda Kuuriyada Koonfureed ayaa isagu waxa uu Axaddii sheegay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ee maalmihii u dambeeyay warbaahinada reer galbeedka shaki gelinaya noloshiisa. Mr. John Il-moon oo ah kaaliyaha siyaasadda arrimaha dibadda ee madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed oo u waramayay telefishinka dalkaasi Mareykanka Fox News ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda Kuuriyada Koonfureed hubto inuu nool yahay Kim Jong Un, caafimaadkiisuna uu yahay mid wanaagsan, balse dowladda Mareykanka ayaa ka dhowr sugaysa xaaladda rasmiga ah ee Kim Jong Un iyadoo aad u danaynaysa inuu meesha ka baxo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. waxayna taa u sababaysaa haddii Kim Jong Un meesha ka baxo in xukuumadda iman doonta ay si wanaagsan isu fahmi doonaan